kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa isniin 19 bishan koowaad ee Janaayo ee sanadkan 2026 qodobada aan idin hayo oo warkeena aad ku maqlaysaan waxaa kamid ah wasiirka xagjirka ah ee dawladda midigta fog ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo markaasi hogaaminayo oo goor sii horeysay si rasmi ah markaasi ugu baaqay in laga takhaluso shakhsiyaadka Hamas markaasi taageersan ee ku sugan xarunta dhexe ee Kiryat oo ah xarunta ay ku sugan yihiin ciidamada militariga ee dawladda dalkaasi Mareykanka iyo sidoo kale dawladaha qaar ee wadamada Carbeed. Waxaa sidoo kale aad maqlaysaan ciidamada militariga ee dawladda Mareykanka oo haatan markaasi bilaabay in wadamada gobolka Khaliijka ay markaasi geeyaan isla markaana si rasmi ah uga howlgeliyaan nidaamka difaaca hawada ee Patriot-ka. Waxaana wararka qaarkood ay markaasi tibaaxayaan in Trump uu qorsheenayo in duqeymo iyo weeraro culus uu si rasmi ah markaasi uga bilaabo dalkaasi Iran. Iyo waxaad maqlaysaan Iran oo si rasmi ah loo xaqiijiyay in weli ay haystaan ilaa 400 oo kilogram oo markaasi ah maadada uranium-ka, waxaana ay awood u leeyihiin in hal mar ay soo saaraan ilaa 140 gantaal oo markaasi ah gantaalada nuclear-ka. Sidoo kale waxaad maqlaysaan kanaalka 13aad ee gumaystaha Israa'iil oo maanta si rasmi ah markaasi looga xaqiijiyay in ciidamada cirka ee Israa'iil in haatan heegan buuxa ay markaasi ku jiraan weliba xilligan oo ay soo baxayaan warar sheegayo in ay suurtagal tahay in dagaalka Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil oo markaasi dhinac ah in si rasmi ah oo markaasi u qarxo. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanayaan idin haya oo warkeena aad ku maqlaysaan daqiiqadaha nagu soo aadan. Haddii aad nagu cusub tahay ha ilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aad u xiis badan aad dalkan uga bogatid. Waxaan ku horeynayaa wasiirka maaliyadda ee dawladda gumaystaha Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa maanta waxa uu isagu markaasi sheegay in la joogo xilligii laga takhalusi lahaa shakhsiyaadka Hamas iyo kooxaha iska caabinta Falastiiniinta markaasi taageersan ee ku sugan xarunta dhexe ee Kiryat Gat ee magaalada Tel Aviv. Smotrich ayaa markaasi sheegay inay qasab tahay in gudaha Israa'iil laga saaro oo laga mamnuuco saraakiisha ka tirsan ciidamada militariga ee dawladaha Masar iyo sidoo kale Britain. Saraakiisha ka tirsan ciidamada militariga ee dawladaha Masar iyo sidoo kale Britain. Bezalel Smotrich ayaa dhanka kale waxa uu isagu markaasi ku baaqay in laga takhaluso Turkiga iyo sidoo kale Qatar, kuwaasi oo uu sheegay inay yihiin caqabada ugu weyn ee haatan ay markaasi wajahayaan Yahuudda. Waxaana uu soo jeediyay in la joogo xilligii wadamadan markaasi laga takhalusi lahaa. Erdogan ayuu sheegay inuu la mid yahay Yahya Sinwar, halka Qatarna uu markaasi sheegay inay la mid yihiin Hamas. Ninkan ayaa sidoo kale markaasi sheegay in la joogo xilligii meesha laga saari lahaa xarunta dhexe ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Kiryat Gat ee magaalada Tel Aviv. Waxaana uu sheegay in xaruntan wax faa'iido ah aysan ugu fadhin Israa'iil. Waxaa sidoo kale uu sheegay in ay qasab tahay in Israa'iil ay Trump markaasi uga warbixiyaan qorshaha uu u hayo marinka Gaza ee Falastiin in uusan u wanaagsanayn Israa'iil, ayna qasab tahay in si degdeg ah uu markaasi ku joojiyo. Waxaa sidoo kale uu markaasi sheegay in ay qasab tahay in la furo marinka Rafah ee xuduudda Masar iyo Gaza iyada oo aanan lagala tashan dawladda Qaahira ee Abdel Fattah al-Sisi uu markaasi hogaaminayo, isla markaana si qasab ah halkaasi looga saaro loogana gudbiyo kumanaanka qof ee haatan markaasi ku dhibaataysan marinka Gaza ee Falastiin. Waxaa dhanka kale Bezalel Smotrich uu markaasi ku baaqay in heshiiska xabashoojinta ee marinka Gaza ee Falastiin markaasi lagu xadgudbo degdeg ahna loo bilaabo duqeymaha iyo weerarada markii hore Yahuudda ay ka geysanayeen marinka Gaza ee Falastiin. Dhanka kale ciidamada militariga ee dawladda Mareykanka ayaa haatan waxaa si rasmi ah markaasi loo xaqiijiyay in nidaamka difaaca hawada ee Patriot-ka oo aad u tiro badan in ay geeyeen isla markaana si rasmi ah ay uga howlgeliyeen wadamada gobolka Khaliijka. Wararka qaarkood waxa ay tibaaxayaan in Trump uusan doonaynin in duqeymo iyo weeraro military in uu ka geysto wadankaasi Iran, balse uu qorshihiisu yahay in gobolka bariga dhexe guud ahaan duqeymahan iyo weeraradan laga dareemo, ama xitaa in uu doonayo in gobolka uu dab xoog leh markaasi ku shido.
warbaahinta Israa'iil ayaa markaasi tabanaysa in ciidamada Mareykanka haatan ay diyaargarow xoog leh markaasi sameynayaan isla markaana uu qorshahoodu yahay in si degdeg ah weeraro culus markaasi loogu qaado waddankaasi Iran. Tani ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli Iran haatan ay markaasi haystaan sida wararku ay tibaaxayaan ilaa 400 oo kilogram oo markaasi ah maadada uraniumka waxaana Iran ay soo saaran karaan ilaa 140 gantaal oo markaasi ah gantaalada nuclearka. halkii gantaal ee nuclearka sidoo kale waxa ay ka sameyn karaan ilaa 200 oo kilotan oo waxyaabaha qarxa ee TNT-ga ah. wararka qaarkood sidoo kale waxay tibaaxayaan in Iran haatan ay markaasi haystaan isla markaana ay ku hubeysan yihiin gantaalka Qaim 100 oo ah gantaal halis ah oo qaaradaha isaga kala gudbi kara waa gantaalada nooca ICBM-ka markaasi loo yaqaano. wararka qaarkood sidoo kale waxay tibaaxayaan in ilaa xilligan hogaamiyaha Islaamiga ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei in amar uusan ku bixin in gantaalo nuclear ah ay markaasi sameystaan ciidamada militariga ee waddankaasi Iran iyo in gantaalkan Qaim 100 si rasmi ah markaasi loo diyaariyo si loogu weeraro Mareykanka iyo sidoo kale xarumaha istiraatiijiga ah ee Yahuudda ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee Falastiin. dhanka kale kanaalka 13 ee Israa'iil ayaa goorsii horeysay si rasmi ah markaasi looga xaqiijiyay in haatan heegan buuxa ay markaasi ku jiraan ciidamada cirka ee Israa'iil waxaana laga baqdan qabaa in dagaalka Iran Mareykanka iyo Israa'iil oo sidoo kale dhinac ah in uu markaasi qarxo. raadiyaha ciidamada militariga ee gumaystaha Israa'iil ayaa si rasmi ah markaasi looga tibiyay in saraakiil ka tirsan aqalka Pentagonka in ay ku wargeliyeen Israa'iil in weerarada ciidamada Mareykanka ay markaasi doonayaan in ay ka bilaabaan waddankaasi Iran in ay sabab u noqon karaan in Iran weeraro argudashaha ay markaasi la beegsato meel kasta oo Yahuudda ay kaga sugan yihiin dhulka la haysta ee Falastiin. wargeyska The Times of Israel ayaa dhanka kale markaasi qoray in madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump weli uu markaasi ka baqayo dagaalkan iyo weerarkan uu doonayay inuu la gala ciidamada Iran waxaana uu raadinayaa qorshe culus oo hal mar khasaare xoog leh uu markaasi ku gaarsiin kara Iran. khasaarahan oo uu doonayo in uu noqdo mid aysan ka soo kabsan karin. waxaa sidoo kale Trump uu isagu markaasi wajahaya cadaadis xoog leh oo uga imaanaya wadamada qaar ee gobolka Khaliijka isla markaana xiriir kale leh Washington kuwaasi oo uga digaya ciidamada Mareykanka in ay weeraro ku qaadaan waddankaasi Iran. dhanka kale taliyaha guud ee ciidamada militariga ee Israa'iil Eyal Zamir ayaa kanaalka 12 ee gumaystaha Israa'iil goorsii horeysay si rasmi ah markaasi uga xaqiijiyay in dibadbaxyadii ka socday waddankaasi Iran in haatan ay markaasi joogsadeen kadib weeraradii iyo howlgalladii cuslaa oo ay qaadeen xubnaha hubeysan ee sida militariga u tababaran ee Basij loo yaqaano kuwaasi oo uu sheegay in ay awood xad dhaaf ah markaasi u adeegsadeen dibadbaxyaashii rabshadaha sameynayay ee burburka xoogga leh xitaa ka geystay masaajidada waddankaasi Iran. Eyal Zamir ayaa dhanka kale markaasi sheegay in la joogo xilligii ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil duqaymo iyo weeraro culus ay ka bilaabi lahaayeen dalkaasi Iran iyo xilligii meesha laga saari lahaa guud ahaan dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalkan kadib dilalkii halkaasi loogu geystay kumanaanka kun ee qof ee isugu soo baxay caasimadaha waddankaasi Iran sida uu hadalka u dhigay. dhanka kale warbaahinta Wala ayaa goorsii horeysay waxaa si rasmi ah ay markaasi u xaqiijisay in sababta Israa'iil ay uga soo horjeesatay duqaymihii iyo weeraradii ciidamada Mareykanka ay doonayeen in ay ka geystaan dalkaasi Iran in ay tahay in la helo maamul gooni ah oo markaasi awood u leh in ay la wareegaan talada iyo maamulka waddankaasi Iran. waxaa sidoo kale wararka qaarkood ay markaasi tibaaxayaan in Israa'iil cabsi xoog leh ay ka qabaan in nidaamkooda difaaca hawada uu markaasi shaqayn waayo iyo in ay heli waayaan gantaalada nooca interceptorska loo yaqaano ee looga hortagay gantaalada balistiga iyo diyaaradaha droneska ah ee Iran ay markaasi la dhici doonaan xarumaha istiraatiijiga ah ee waddankaasi Iran. wararka qaarkood sidoo kale waxay tibaaxayaan in Israa'iil ay si toos ah ula hadleen taliska ciidamada militariga ee dalkaasi Mareykanka weliba xilli weerarkan uu markaasi qorsheysnaa in Iran lagu qaado isbuucii aynu soo dhaafnay xilligaasi oo ay doonayeen in ay markaasi taageeraan dibadbaxyaashii rabshadaha sameynayay ee ka soo horjeeday dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalkaasi Iran. haatan ciidamada dowladda Mareykanka waxa ay markaasi wadaan dhaqdhaqaaq ciidan waxaana ay doonayaan in saacadaha iyo maalmaha nagu soo aadan
in weeraro culus ay markaasi ka bilaabaan waddankaasi Iran sida wararku ay tibaaxayaan. Iran dhanka kale waxa ay markaasi wadaa diyaargarow xoog leh, waxaana wararka qaarkood ay markaasi tibaaxayaan in qorshaha ciidamada militariga ee dalkaasi Iran uu yahay in maalin waliba in ka badan 1,000 gantaal oo isugu jira ballistic iyo cruise in ay la dhacaan saldhigyada ciidamada militariga ay ku leeyihiin gobolka Bariga Dhexe iyo xarumaha istiraatiijiga ah ee Yahuudda ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee Falastiin. Waata intaasi ayaa nooga gudbaya wararkii ugu dambeeyay ee xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe oo aad ka daawanayseen isla markaana aad kala socoteen kanaalkeena. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso, ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiiso badan dalkan